meel dusheeda buur ceeryaamo leh dusheeda waxaa ka taagnaa guri weyn oo duug ah oo la dhihi jiray muddo 70 sano ah cidna ma aysan degin dadka deegaanka waxay sheegi jireen in darbiyada gurigaasi ay hadli jireen habeenkii laakiin ninkan oo ahaa naqshadeeye dhismo iyo xaaskiisa waxay u arkayeen oo keliya hanti duug ah oo leh qiimo waxaana weheliyay laba saaxiibadooda oo ahaa wiil iyo gabar midi wuxuu ahaa baare reer aakhiraad halka ay gabartu ahayd sawir qaade markii ay ridda hore galeen jiima iyadoo kor qasriga ka eegaysa ayay tiri gurigan wuxuu ka weyn yahay sidii aan moodayey liam wejigiisu wuxuu ahaa mid cabsi leh wuxuu dhahay wuu weyn yahay keliya ma aha ee waa meel cabsi leh dabaysha qabo ee dhacas ayaa geedaha dhex maraysay taariikhda gurigan liam ayaa sii waday baarista taariikhda guriga wuxuuna si cabsi leh u yidhi taariikhda gurigan waxay ku xihan tahay ereyga makoosha badbaado ruuxeed laakiin cidna halkan nabad kuma helin markii ay albaabka fureen hawo qabow oo culus ayaa wejiyadooda ku dhacday saara si tartiib ah ayay qoorteeda u taabatay waxayna dhahday alexis ma dareentay sidii qof qoortaada ku neefsanaya alexis waa uu ku qoslay waa guriga duugga ah hawada ayaa isbedeshay ayaan u malaynayaa laakiin guriga gudihiisa aamusnaanta waxay ahayd mid aan dabiici ahayn habeenkii markay saacaddu ahayd 11kii habeennimo tallaabooyin culus ayaa ka soo yeeray dabaqa sare dum 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 liam markiiba qalabkiisii duubista ayuu shiday qof ma joogaa halkaas ayuu ku qaylinayay markaas cod ka soo baxay darbiyada ayaa isku lalaabanayay fura albaabka ayuu cod ku dhahayay saare neefti ayaa ku dhegtay ma maqashaan taas ayay tiri si lama filaan ah saacad duug ah oo sannado badan istaagsaneed ayaa bilowday inay si xoog leh u wareegto tik 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 tok tik tog ayay dhahaysay sida saacadda camal markii saacaddu samaynaysa dhaqdhaqaaq wareeg ah sagxadda qolka qayb ka mid ah hoos ayaa iskoogu furtay hoosteeda waxaa ka soo muuqday jaraanjaro qarsoon oo sir ah dhammaadka jaraanjaradaas waxaa ku yaalay albaab weyn oo alwaax ah dusha sare waxaa ku sawirnaa calaamado la yaab leh liam cod hoose ayuu ku yidhi albaabka makoosha milkiilihii hore ee gurigan wuxuu aaminsanaa inuu dadka dambiilayaasha ah si toos ah uu jaraanjarada ugu diri karo laakiin indhihiisu cabsi ayay noqdeen ugu dambayn halkii uu badbaadin lahaa dadka wuxuu bilaabay inuu halkan ku xidho oo uu dadkaas jirdil ugu geysto ilaa ay iskood iskugu bedelaan reer akharaad isla daqiiqadahaas kaamaradii galoora tooshkeedii ayaa si iskiisa u shidmay markii iftiinku qolka ku dhacay waxay arkeen hoosas dad u eg oo taagtaagan albaabka gadaashiisa laakiin wejiyo ma lahayn af ma lahayn indho ma lahayn si kastaba qayladooda waxay si toos ah ugu dhacaysay maskaxdooda na sii daaya waxaan rabnaa inaan baxno ayay ku qaylinayeen waxayna si cabsile u dhahayeen dhiiggu waa furaha gloria si lama filaan ah ayay hawada ugu kacday jidhkeedu si tartiib ayuu kor ugu sabaynayay indhaheedu waxay noqdeen caddaan buuxa waxayna ku hadashay luuqadaysan weligeed maqal hal naf hal fure yacnii qofaa dhimanaya qofaa badbaadaya makoosha bilaash laguma helo albaabkii weynaa wuxuu bilaabay inuu iskiis u furmo laakiin gudaha wax iftiin ah kama aysan jirin mugdi zaa'ida oo cabsi ayaa ka jirtay waxaa ka soo baxaya qiiq madow oo aad u badan qolka heerkulkiisu si daran ayuu hoos ugu sii dhacayay yacnii kulayl zaa'ida ayuu noqonayay saara iyadoo gariiraysa ayay qaylisay alexis albaabka xir waxaas laguma tilmaami karo in qof la badbaadinayo waxay dunideena keenayaan ruuxdaas reer akharaadka ah alexis wuu fahmay in aqli iyo sharaxaad aysan hadda shaqaynaynin gloria oo dhulka ku soo dhacday ayaa si daciif la u tiri way imaanayaan qof walbana waa ay qaadanayaan markaas qolka oo dhan ayaa gariiray buwaagtii meesha saarnaana waa ay soo daateen dabayshu waxay samaynaysay dhawaaqyo dad ooynaya u eg waa waree camal saare waxay aragtay buug duug ah oo yaal miis gadaashiisa boggiisa waxaa ku qornaa hal sadar waxaa xihan siixir waxa kuu furmay dib u xidh albaabkan weligiis shaambad ku xidh yacnii qof albaabka ku xirxira camal saare iyadoo ilmaynaysa ayay ereyadaas ku celcelisay qayle aad u daran ayaa guriga gilgishay waxay u ekayd kumanaan ruux oo iskumar qaylinaya qayle kadib wax walba waa ay aamuseen subaxdii markii falaarihii ugu horreeyey ee qoraxda ku dhaceen gurigii qasriga ahaa afartoodii weli waa ay noolaayeen gurigana wuxuu u muuqday mid ka aamusan sidii hore laakiin albaabkii weli wuxuu ku jiray hoosta guriga xihan ama laga yaabee inuu sugaayay inuu qof kale furo mar dambe halkan kuma soo laabanina ayuu yidhi alexis gloria si hoose ayay ugu jawaabtay qaar ka mid a albaabada waa inay weligood xidhnaadaan 3 sac kadib waxay gaareen guriga casriga ah ee uu lahaa alexis waxay moodayeen in derbiyada shubka ah iyo nalalka magaalada ay badbaadin doonaan laakiin markii alexis uu furay albaabka guriga wuxuu dareemay isla qabowgii iyo culayskii ka soo baxayay qasriga hawada gudaha ka soo baxaysay waxay ahaayeen isku mid sida kii hore camal waa mala awaal ayuu isku qanciyey dhammaantood waa ay argagaxeen markii ay dareemeen hawada ka soo baxaysa guriga yacnii kii hore iyo kan isku mid waaye laakiin habeenkii 2 saac liam wuxuu fadhiyey qolka fadhiga isagoo dhegaysanaya codadyadii ay duubayeen kadib codka waxaa ka soo baxayay cod aan markii hore jirin oo aysan maqlaynin oo ay keliya ku maqlayaan duubista ay codkan duubeen liam gadaashaada eeg
Liam wajigiisa waxa ka muuqday naxdin. Alakis, Sarah, soo baxa dhammaantood waxay u soo ordeen qolka Gloria ay hurday. Liam isagoo gariiraya ayuu farta ku fiiqay Gloria. waatan ta dadka dhamaysa waatan ayuu dhahay. Laakiin Gloria waxay ku jirtay hurdo oo waxaan dhan ma aysan dareemaynin. Indhaheedu marar badan waxay noqonayeen caddaan. Waxay si tartiib ah ugu socotay derbiga guriga iyadoo farteeda ku xoqaysa. Markii Alakis iftiinkii shiday, derbiga waxaa ka soo muuqday erayo dhiig ah. Albaabkii wali wuu furan yahay.